faleembadan iguma socoto inaan xanuunsanahay darteeda ee waa adeeg vitamins ah oo loo yaqaano IV vitamin wuxuuna u roon yahay qofkii oo tabar yari hayso oo energy-giisa loo yahay qof oo insomnia haysto hurdo la'aan haysto maybe magnesium-ka ku yar yahay waxaa wadankeeni qoraxa la helaa cunto fresh la cunaa mala dareemi jirin vitamin la'aan adeegan oo sanadihii ugu dambeeyay marka kasii dambaysa ku soo siyaadaya adduunka ayaa Soomaalida ganacsi ahaan u hirgelisay magaalada London waxaa kamid ah labadan gabdhood marka muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa adeegan waxa uu kaga duwan yahay kiniiniyada fitamiinka ay la qaato sida qofka uu dareemayo marka uu qaato kadib yay tahay in uusan qaadan khatar miyuu leeyahay iyo sidoo kale qarashaadka adeegan lagu sameyn doono anaga company-ga waxaana la yiraahdaa Fire Natural Healing muddo intii ilaa halkan waxaan ka furnay 5 sano ah ka horna meel kale ka furnay adeegyadaan hayna waxaa kamid ah waxa loo yaqaan shock wave-ka oo loogu talagalay in xanuunada jirka sida murqaha kala goosyada iyo dadka dhaawacyadu soo gaareen waxaa kamid ah fitamiinada dadka lagu shubayo waxaa kamid ah hubinta ama jeegaraynta fitamiinada qofka jirkiisa ku jira marka adeegyadaas oo isku jira baan ku qabanaa halka kan magaciiduna saddexan Xaw Axmed aldaha anigana Saadiye Axmed aldaha waxa ku diina wixii dhanta ku shubtay miya vitaminada inta ku shubay kulligood laakiin vitamin D-ga iyo zinc-ga garbahan kaas laakiin tii kale inta ku jiraan kulli inta ka soo this my cocktail marka su'aalaha ku diina markaan qaato qofka markuu qaato muxuu dareemaa marka qaadato waxa dareemaysaa inta qaadanaysa marka qaato kadib markuu ku dhamaado waxa dareemaysaa very energetic deegadan aw maxaa la dhahaa tabar badan haysanaysaa hurdo fiican si fiican baa u seexanaysaa laakiin waxa kula talin lahaa adiga maxaa la dhahaa saddex bilood ka bacdi make sure ina vitamin qaadatid multivitamins si fiican u qaad vitaminada cunta oo vitamin fiican leh organic make sure adina isdareeshido marka صح ilaa wixii dhama ka kacay noqonayaan biyo fiican hydration noqotid make sure ina biyo fiican cabaysid so after 3 months can only boost you kusina insha Allah big boost leeyahay okay intaan sirtan soo seexanin oo fitamiinaadka lagu bilaabay waxa jirtay gabadh dhalinyaro ah oo fitamiinaadka qaadanaysay waxayna ii sheegtay inay hor xataa u qaadato markasta ay qaadato marka waxaan weydiin doonaa waxa ay dareentay ama ay dareento usually marka ay qaadato iyo faa'iidooyinka uu leeyahay marka magacayga waa Badriya fitamiinka marka aad qaadato maxaa dareentaa marka qaado waxaan dareemaa ina energy ay yeeshto oo appetite ay furmado maanta ina like horta maanta miya hayso like ina meel iska jiifo like caajis badan aadan علشان caajis ka qaada waxa Badriyo waddanka ku dhalatay marka Soomaaliya aad ugu fiican tahay isku day inuu hadasho laakiin badanaa luqadeedu ku English waaye Badriyo aad u mahadsan tahay because waxaan rabnaa inaan ogaano dadku waxa ay dareemaan markay fitamiinka qaataan marka wax aad muhiim ah ka dhawaajisay because qofka hadii oo energy fiican helo in wax barashada camalka waran wax ka xabaranay sidoo kale ka caawiya fitamiinadka in qaato marka wax baranayo si fiican concentrate kara diirada oo sarta energy badan like si fiican cashirkayga u sameyn kara taxamiya like energy badan ay heli cashan wax asnaa ku qabat ma sha Allah Badri aad oo maasantahay markii ay imaato horta ana vitamiiniskan waxaan qaatay 2013 December 12 September astaghfirullah 12 September aan qaatay vitamiinkan anigoo tabcaan la ah waxaan recommend gareeyay oo aan saaxiibnahay because waxa igu dhacay Ballonian Deela waxa igu dhacday markii aan dheelo
subaxii markaan kaco galabtu kale aan dhiiro subaxii markaan kaco caadi aan ahaan jiray marka waxaan dareemay marka murqo inay xanuuno oo aad murqo i xanuunaan baawarku markaan ka dago weli banooniga shalay aan dheelay inay 2-3 days in murqaha weli ay xanuunaan which is unusual laakiin anoo yaaban wiil saaxiibkii wuxuu igu yiri vitamin aan keedo murqaha kale banooniga magnesium kii every laga yaaba zinc kii every laga yaaba vitamino badan oo i tiriyay ka bacdi markaas aan qaatay tan oo kale aan qaatay en been idima sheegayo banoonigii ugu horeeyay aan dheelay markaas weekaas waa nasta week ku xiga banooni lahaay next morning markaan kacay aan baraaway ma waxa igu jirtay bal inuu shaqeynaa in kale banooniga ku ogaad doontaa oo kale markaas wixii soo kacay waxba isku maan arkay markaas waxaa ogaaday ciladaha ay hayst inay ahaayeen vitamin la'aan ha sida dhaqso u socoto gacanta hoos u dhig so gravity-ga caawinaya inay dhaqso u socoto ha urday ka war ha عشان gacanta di kor loo dhigo waqti dheer ku qaadanay ma soconaay maanta dhan aniga kor gacanta ii saarneed saas waaye maxay ku kala duwan yihiin kliniga vitaminiska beelis kala qaato iyo IV vitamin drip aad xisin vitamin kaniiniyaasha xogaa IV wuxuu ku fiican yahay IV-ga directly wuxuu tagayaa dhiig raacaya so waa fast treatment quick dhaqso ku helaysid boost fiican u siinaya big boost kaniiniga waxaa laga yaabaa markaa qaadatid inaa xoogaa kaniiniga dhan ma absorb gareyn kartid in xoogaa qaar kaadida raacdo saxarada raacdo waxaas laga yaabaa laakiin IV-ga dhaqsaa dareemaysaa 2 bari ka bacdi 1 bari ka bacdi waa dareemaysaaba energy dareemaysaa qofka xamada inuu soo noolaado dareemaysaa adiga dhan waa firfircooni baa dareemaysaa yaa u baahan IV vitaminiska IV vitamin waxaa u baahan qofka markuu dareemayo daal oo energy haysanin dadka haysto maxaa la dhahaa hurdo la'aanta dadka hurdo la'aanta hayso oo insomnia waxaa la dhahaa qabaan maybe magnesiumka ku yar yahay ama masaladooda xataa xanuunayaan magnesiumka masalada ku yar yahay dadka haysto digestive problem like caloosha dhinaca caloosha gut problem haysto dadkaasoo kale u baahan iyo dad maanta dhan dhahayo aniga dhan daal la ahaayo dad xataa waxaa jira dhahayaan oo kaniini waa qaataa kanaan qaataa laakiin kaniiniyaashii ma anfacayaan dadkaasoo kale u baahan yihiin xoogaa inuu big boost siiyo maxaa ku dhiirigeliyay inaad ganacsigan furtaan waxaan ugu dhiirigeliyay waxay tahay inaan aragnay dadkeeni Soomaalida oo vitaminadii ka dhamaadeen waxaas keenay waxa wadankeeni qoraxa la helaa cunto fresh la cunaa mala dareemi jirin vitamin la'aan laakiin markii wadankan la imaaday hawadii waa bedelan tahay cuntadii waa bedelan tahay marka vitaminadii aad ka dhamaadeen mana ay is ogo ma noo sharxi kartaa qaabka u shaqeeyaan adeegyada haysan horta vitamiinka dhowr kala baxaa vitamiino badan aad ku shubnaa oo kala nooc ah marka adeeg waxa kamid ah midka ugu horeyso mid oo wellness la dhaho like qofka u baahan yahay waxa lagu yaraa mice cocktail la dhahaa vitaminada dhan ku jiro isku dare also waxaa haynaa kuwa oo dadka lagu talagalay haday dumarka rabaan inay iscadeeyaan so ma aha wax chemical ma aha wax dhan waa wada vitamin oo jirka internal u galaayo kaasna waa skin lightening la dhahaa the main vitamin kamid waxa la dhahaa glutathione so wuxuu fiican yahay dadka oo maxaa la dhahaa haaraha ay haysta pigmentation ke waxaas wuu fiican yahay so complexionka jirka la soo saaraya waxa kale kamid skin lightening waa sameynaa aging xataa waa sameynaa dadka is dhahayaan wrinkles ke waxaas vitamino gooniya jira ayagana wrinkles af Soomaali ahaan maxaa ka wada wrinkleska iyo maxaa la dhahaa waxaa kamid ah vitamin D oo Soomaalida dhan ay la gareysan tahay kaasna waa sameynaa oo short ah B12 waa sameynaa isagana short ah intramuscular waa garabka laga dhufanaya iyo waxaan sameynaa dadka qaar oo timaha ka daadanayaan so hair loss so biotin iyo hair therapy la dhahaa kaasna waa sameynaa marka dhowr nooc u kala baxaan vitaminada ay digaha anagana before aan dadka ana ku durinba waa baarnaa machine waxa haysanaa oo dadka lagu baaro marka lagu baaro oo waxa ka dhiman la arko markaas lagu duraayo wixii ka dhiman resultiga lagu siiyo waxa soo dhan marka ma hal faleenba ma la isku geynaa mise qaar waa kala gooni oo qaarna garabka laga siinaa qofka qaar intramuscular waaye like vitamin D ga B12 ka ay dhan waa intramuscular
qaarna inta kalena cocktail la dhahaa IV-ga waxa lagu shubaa baaga biyaha lagu shubaa waxaas dhan waxaa ka horeeya qofka inuu ogaado wuxuu deficient ku yahay wuxuu la garanayo soo machine kala jiro oo dadka ku baarno marka lagu baaro markaas wixii kugu haboon wixii ka maqan markaas afaleenbada lagu shubaa qaarna la siinaa deficient waxa ku tahay ma sha Allah shockwave-ka hadii aan imaano yaa u baahan waxaa u baahan shockwave-ka dadka markuu injury ku dhaco dhaawac gaaro markay haday arthritis qabaan lafa xanuun dadka murqaha xanuuno iskoosiyaha xanuuno dadka qabaan frozen shoulder oo dhinac dhan xanuunayo oo muruq camal garab kaga jiro also waxaa loogu talagalay shockwave-ka dadka cagaha xanuunaan markay subaxii soo kacaan sariirta markay ka soo kacaan ee cagaha dhulka dhigaan cagta cadoo dhana xanuunaysa iyo ciribta markay soconayaan ama shaqo ay ku jiraan taagnin ciribta waxaa moodaa inuu wax looga mudaayo dadka saasay markay imaadaan ku tilmaamaan ciribta waxaa moodaa inay wax iga mudaayaan waxaa la dhahaa achlioides midka cagta cad dadka xanuunaana waxaa la dhahaa plantar fasciitis marka dadka cuduradaas qabo loogu talagalay shockwave-ka dadka sportiska haddii la dhaho hamstring maxaa lahay hamstring dadka wax ka gaaro kale dadka gymka kale garbax ka gaaro ayagana ma imaan karaan oo wax ma qaban karaan waa loogu talagalay asagaaba loogu talagalay because markay is-injure gareeyaan physiotherapy waxay ku qaadanaysaa waqti dheer laakiin mashiinkan waxay u baahan yihiin 3 week 4 week 5 week meelahaas and then way ka boodayaan xanuunka wax khatar ah ma leeyahay qaadashada adeegin so vitamiinka kale vitaminada laba nooc ay u kala baxaan kuwo biyaha raaca iyo kuwo jirka faatka ku milma marka kuwa oo biyaha raaca si kasta haddii ay u badan yihiin kolley kaadidu soo raacaya kuwa oo ku milma faatkana waa laba bes which is the zinc iyo vitamin D-ga kuwaasna qof laguma duro ayadoosan already la ogaanin baaristii qofka ma haystaa enough mise ma haysto marka qofka waxa balse ma duro karo side effect ma u keenayo okay that's very good ma jira xaalad qofka uusan qaadan karin tusaale ahaan IV vitaminiska ama shockwave-ka way jirtaa ciyaalka yaryar oo kale dumarka markay uur leeyihiin oo kale ma ku durna vitamins because wax kasta dhici kara waxa imaan kara dhibaato ka imaan karta so ma lagu duro dadka dumarka markay uur leeyihiin ciyaalka yaryariiskana maba loo ogolo cirbadaas suran maanta dhan iyo waxaas ma loo ogolo dadka xanuunada kala qabo caadiga jirooyinka kala qabo kale ayaga ma lagu duri karaa dadka oo kale waxaa jiro oo qaataan daawooyin hooyinka badanaa qaar waxaa laga yaabaa inay ilaawin noo sheegin daawooyin waxaa jiro warfarin camal oo kale dadkaas they have a clotting problem so marka istiraadiba xididka waa heshay dhiig oo ku duri kartaa xididka isxiraayo so dhiigga dhan clotting noqona so marmarka anaga kow maamooyinka waa weydiinaa fooma ka buuxinaa haddii any complications daawooyin qaataan marka hore usii ogaana dadkaasoo kale ma ku dirno macaamiishiina ma Soomaali basa ma isku jiraan yees u badan yihiin macaamiisheena waa isku jiraan Soomaali Eritrean Ethiopian cadaan kulli laakiin Soomaalida u badan iyo Eritreanka adeegyada bixisiin aan qarash nooc ku kobcaa shaqo qarash nooc ugu adeegtiin qofka haddii uu u baahan yahay IV vitamin oo kale so marka u horeyso qofka waa la baarayaa marka la baaro oo la resultskiisa la helo markaas la ogaan karaa maxuu qofkan maxaa deficient ku oo ku yar iyo muxuusan u baahnayn in lagu dhufto oo in lagu duro ama in la suro marka vitamin D oo kale hadduu qofka u fiican tahay oo meel fiican u marayso oosan ku yareen dan inta kale lagu shubaya cocktailka kale oo vitamino badan isku jira haddii waxaa dhici karta inuu vitaminada kuwa cocktailka inuu in badan haysto oo maybe 2 xabo 3 xabo ku yar yahay zinkiga oo kale garabka lagu duraa soo kaligiisa lagu duri karaa qofka wixii baahidiisa ku xiran tahay علشان waxa toos oo aad kartiin waxaan intaan la gadaa ma jirto waxay ku xiran tahay qofka waxa ka maqan jirkiisa qofka waa kala badan yahay dabcan sax waa wax macquul ah waxaan soo gaarnay muuqaalka gabagabadiisii xaawo iyo Suudi maxaa u gudbin lahayd dadka ku daawanaya maxaa u gudbin lahayd dadka waxaan ku dhiirgelin lahaa inay isbaaraan oo vitaminada ka qayb qaataan oo u baahan yihiin
marka muuqaalkan waxa aan kugu soo gudbinayo kale ayaa koow ee ka tahay anigu ma aan ogeyn hadii sheegi leen ma ogaan lahayn waxa laga yaabaa dad badan inaysan ogeyn oo markii baawarka ayaa cabaar wadaan oo kale masaacado wadaan markay kasoo degaan oo kale inay dareemayaan lugaha ee muruqaha meel kasta isku dhagaan maamooyin laga yaabo inaysan caadi u socon karin oo isleeyihiin jirka ku xanuunaha ama daa ka taba timid inaysan ahayn laga yaabo fitamiinad ay yihiin marka waxaan dareemay in ummadda Soomaaliyeed isku baraarugsaneen in la qaadan karo fitamiinad toos loo qaadan karo waxa laga yaabaa dad qaar inay fitamiino qaataan 5 6 7 waxa la soo siinaa oo fitamiino ah 7 kiniin qofka maalintii ma laqi karo waxa laga yaabaa qofka in uu xaaladiisa aad u adag tahay uusan mataqaanaa markaas u baahan yahay gargaar degdeg oo markaas u baahan yahay wax effect toos u baahan yahay marka cirbadan waxay ka caawinaysaa qofka in hal mar fitamiinadkiisa la wada saxo kabacdi kiniinadkiisa soo qaato iskriineedku waa shaqeynayaan marka waxaan kula tali lahaa dadka dareemaya murqa xanuunka dadka dareemaya mataqaanaa daalka faraha badan sida maanta dhan gabdhuhu ay ku celcelinayaan dadka ku celcelinayaan عشان قفك هدي أقدر يوم وحيابها صوت نحن وحبق بسكر أو تبعاني هاي علشان ده ماهن ما أنجرك له هيس ما أهن إنه منطقة ما تبي شقينا أو حيابك له هاي ما أهن قفك فيتامينات كسنو باروا جمعها قل لي يسار هداي واركتين فيتامينات اللي يجيب بارقك هاي ما هذا هدي حتى أزليها نيو وحكى لك هاي حتى هاي ما هلا بارا دوسن وحبا وصوبة هنين ولو شيء وحلا يحبون من بهنت اسكب حلا هدول فيتامين وبهيان ووالا صينا مركا waxaan ku rukumeynaa in la imaado waliba gabdhahan walaana Soomaaliyeed in la support gareeyo in ganacsigan dabcan ganacsi caafimaad ku saabsan waxayna inoo sheegeen in mataqaanaa ay ugu tala galeen ummadda Soomaaliyeed inay ku caawiyaan idinkan waxa la rabaa inaad caafimaadkiina ku dadaashiin qurbaa joognaa qorax ma haysano raashin fiican ma haysano stresskan uu badan yahay lacag la diraa maalin kasta waa la fikiraa marka fikirkaas wuxuu dhalinaa qofka fitamiinadkiisaas inuusan mataqaan inuu dhamaado oo kale hurdo fiican heli qofka doosa seexana fitamiinadkiisaas waa dhamaanayaan qasab waaye marka imaada gabdhahan hal sabort gareey shaqo u tahay idinkan caafimaadkiina helaysin insha Allah address ahaan hadii la yiraahdo waalidii imaanaha oo kale mana sii kartaa basaska iyo tareemaha iyo qaabka loo imaan karo xaruntiina xarunta iyadu waxay ku taalaa waqooyiga London ama North London gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Tottenham u dhow isbartiibada Burnley lagu ciyaaro Tottenham jidka la yiraahdo Tottenham High Road oo ah 551 ama 551 tareenada ugu dhow waxa soo raaci kara 7 Sister Victoria Station Victoria Line oo 7 Sister Station waxa soo raaci tareenada waxa wadada kartaa Wadhart Line-ka ama Bruce Station basaska la hormaro ugu badan waxa ka mid ah baska la yiraahdo 259 ama 279 sidoo kale baska ka yimaada xaggaas iyo meesha la yiraahdo London Bridge 149 marka area waa caan weeye waxaan iska soo horjeednaa maqaayada caanka la yiraahdo Brothers Tottenham High Road 551 u dhow isbartiibada Burnley lagu ciyaaro ee caanka ee kooxda Tottenham marka muuqaalkan muuqaal lamid ah tan ku mid doon waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo